السلام عليكم. xaalad culus ayaa caawa ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kadib markii dabaabaadka dagaalka magaalada duleedkeeda ay la timi Somaliland. saacado ka hor ayay ahayd markii hogaamiyaha mucaaradka ah ee Faysal Cali Waraabe ee xisbiga UCID uu sheegay in uu ka seexan laayahay waxa ka soconaya Laascaanood. Markale Somaliland duulaan ayay soo qaadaysaa. Waxaan ku hayaa warar iyo xogo cadeymo wata. Sidoo kale shirkii ka socday in dhawaalaha magaalada Laascaanood ama labadii maalin ee ugu dambeeyay waliba uu socdaa maalinkiisii saddexaad ayuuna berri ku tilaabsanaya iyadoo oo ay ka qayb galayaan odayaasha dhaqanka dhalinyarada culimada diinka waxgaradka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer SSC halkee bay wax marayaan. Waxaan ku hayaa khudbad uu jeediyay madaxweynihii hore ee SSC Khaatumo oo dhinacyo badan taabanaysa. wararkan kale waxa ku jira wafdigii dowladda federaalka ee Soomaaliya ku matalayay shirkaasi si gaar ah wasiir Cali Xoosh iyo xubnihii kale ayaa dib ugu soo guriyay noqonaya Muqdisho iyagoo oo limin siyaasadeed ka sida deegaanadaasi 30 Agoostna halkaas waxaa tagaya madaxweyne Xashiin Maxamuud sidaas waxa sheegay hogaamiyaha SSC Khaatumo Cabdiqaadir Aw Cali Firdhiye. xogo iyo macluumaad dheeriya ayaan haynaa. Puntland maxay ka tiri beesha warsangeli care ay muujisay iyo qodobo kale aan ku hayaa. soo dhaw hadii aad naga cusub tahay waxaan ka codsanayaa muuqaalka like saarto channelka aad subscribe soo tiraahdo hagaag. caawa xiisad culus oo dagaal ayaa ka taagan duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool si gaar ah aaga hore ay isku horfadhiyaan ciidamada deegaanka ee SSC Khaatumo iyo kuwa Somaliland. xiisad ayaa halkaasi ka taagan waxaana la soo warinayaa in ay suuragal tahay in saacad walba Somaliland ay duulaan ku soo qaado dhinaca SSC Khaatumo oo hadda ku talaabsanayso horumar waaweyn oo lixaad leh. بعدما 30 sano wax ka badan Somaliland ay sheeganayso dawlad madax bannaan oo aysan haysan ictiraaf caalami ah. SSC-na guulo waaweyn oo siyaasadeed ay ku gaartay wax ka yar 2 sano waxay Somaliland go'aansatay qorshihii ugu dambeeyay ee lagu wiiqayo nabadda halkaasi taala iyadoo oo Somaliland ciidamada halkaasi kaga sugnaa ay soo kordhisay. sidoo kale hogaamiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo gudbo siyaasadeed ay ugu yeeraan dadka isaga ka soo horjeeda ayaa wuxuu sheegay inuu ka hooyan la yahay kana harsan la yahay xaaladda ka taagan deegaanada Somaliland isagoo uu yiri dalkeena caawa halka uu marayo waa an ka seexan la ahay dawladdiina wax talaabo ama qaadis. dabcan wuxuu dhaliilayaa hogaanka Somaliland si gaar ah madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciro. wararku waxay sheegayaan in Somaliland qabanqaabadii ugu dambeysay ee dagaal ay ku galayso ay wado iyadoo oo gobolka hadda ay ku sugan yihiin wufuud kala duwan oo dhinacyo kala duwan isugu jira sida siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan. garaadada oo ku sugan Laascaanood kana qayb galaya shirka labadii maalin ee ugu dambeeyay socday ayaa dhankooda waxay sheegeen in iyagu aysan qayb ka noqon doonin carqaladda gobolka. hase ahaatee odayaashu waxay u muuqataa inay laba garab kala qaybsan yihiin kadib toddobaadkan markii uu soo shaac baxay khilaafka u dhaxeeya odayaasha dhaqan si gaar ah Garaad Jaamac Garaad Cali oo ku caana gala dagaalka isagoo uu yiri 15 sano ka hor tala meel nooga timi oo uu Somaliland ula jeedo oo aan eednay buu yiri in aan qaadano haddana tala xamar nooga timi qaadamayno oo Puntland iyo warsangeli ayaan la jiraa buu si cad u yiri. odayaasha dhaqan iyaguna qaarkood waxay taageereen shirkan soconaya. si kastaba xaaladda hadda way culus tahay dagaal ayaana suuragal mar walba. shirka hadaynu toos u tagnana waxa ka soo qayb galay dadkii ugu badnaa iyadoo oo ergada halkaasi ku sugan ay kor u dhaafayso 700 oo ruux. subax walba hoolka lagu shirayo waxa gala ku dhawaad 1,000 qof oo qaybaha kala duwan ee bulshada isugu jira kuwaas oo shirka qayb ka ah. qaarkood waa marti culus halka kuwa kale ay yihiin wufuud qaybaha kala duwan ee bulshada ah iyadoo oo dadka deegaanka magaaladaasina ay qayb ka yihiin shirkan. wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda dowladda federaalka uu kamid yahay wasiirka arrimaha gudaha Cali Xoosh ninka aqalka sare guddoonka labaad ka ah Masatimo Cade oo deegaanadaas ka soo jeedo iyo mas'uuliyiin kale ay halkaasi ku sugan. madaxweynihii dhammaan ee jamhuuriyadda ayaana toddobaadyada soo aadan gaaraya Laascaanood taas oo cadeynaysa in Laascaanood ay noqon karto magaalo ku suntan astaan wadaniyadeed iyo midnimo. waxaan kula wadaagayaa madaxweynihii hore ee SSC Khaatumo oo halkaasi khudbad ka jeediyay ee ila daawo. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً إلهي بمهد إسكاله إلهي إنه سورتقل يمان تينا مناسبة نسقوني مادنو. ثانياً قدومية كحجان كأقل كسرة الدولة الفدرال كأه hogaamiyaha maamul goboleedka Khaatumo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ah golayaasha kale ee wasiirada iyo xildhibaanada iyo seneetarada bale
ismada dhaqanka iyo marti sharafta kale ee joogta meesha dhanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta kale madaxayna furan soo maaha madaxayna furan waxba is dhageysi badan iyo hadal badan looma baahna intii loo baahnaa la yiri intii la inoogu xidhayay hadalka ayuun baa inoo hadhay haddii alla ku samagol yahay oo madaxweynaha iyo senatorka iyo aynu ka dhageysan doono iyo dawladda federaalka inta ka hadhay aniga farxad gaar ah ii tahay waxaan ka mid ahaa saad wada ogsoontihiin ba haddii alla ku samagol yahay aasaasayaashii khaatumo aasaaskii hore ee khaatumo iyo halgankii ka horreeyay SSC-ba waxa uu dhalay meeshan inuu maanta joogno inay timaado muxuu ahaa intii ku dhimatay intaasoo dhan iyo intii ku dhaawacantay iyo 20 jirka maanta kaadida laga qaadayo ee jooga ee nool intaba waynu kaga samraynaa inaynu maanta halkan soo gaarnay oo aynu dawlad yeelanay rasmi ah oo dawlad goboleed ka baxno oo ka baxno maxay tahay dispute ka baxno oo ku meel gaar ka baxno dawladda federaalka waa waajibay gudatay waa sidii looga hadlay waajibay gudatay way in kasta kuwa ka horeeyo waajibka gudan way ay jiraan de mahadnaq way mudan yihiin qofka muslimka marka salaada loo aadimo midna masaajidka waa dhaafa midna waa galaa ilaahayna waa kala abaar mariya dhowto labaduba oo muslim bay sheeganayaan anigu waxaan rabaa inaan laba eray inaan ka hadlo maanta waa isbogaadinaynaa laakiin shaqadii way hadhay shaqadii waxay u hadhay sool iyo sanaag iyo cayn dadka dega anigu reer hebel iyo reer hebel toon oran maaye intaasoo dhan mid yar iyo mid weynba ayay u hadhay shaqadii maanta waxaa la rabaa idinka imanaysaa qaabka wax qaybsigu federaal ka iman mayso dawladda khaatumana ka iman mayso waa idinka la idinka baahan yahay ii cuninaas tirahdaan maanta meel aynu dib uga noqonno ma joognay ergooyinka marka la xure ee la saaro ergooyinku intaanu bay ka koobnaan doonaa iyo deeqidii laga xule ergooyinow hadhow ma maqli karo erga tiraahda anigu waa cadhoonayaayo waa ka baxaya maxay ahayd shirka cidina kama bixi karto qof waliba isagoo raalli ah oo ku qanacsan waxa aad ku heshiisaan ayaanu rabnaa inay soo dhammaato waxaynu u baahanay dawlad waa maxay dawlad maaha madaxweyne iyo golo wasiirre iyo maaha waa adeegayaal bay dawladdu waa dadka waxaynu la qaylinaynaa ee la ordaynay waxay ahayd inaynu dadkeenna u helo adeegii aasaasiga ahaa ee ay u baahnaayeen inay sida bulshooyinka kale ee Soomaaliyeed ay u horumaraan oo inaga maqnayd inaga oo isku haysashadu ay keentay inay inaga maqnaato waa ilaahay mahadi haddaynu soo garanay maanta inay halkan soo gaadho oo aynu ka midho dhalino marka waxaad yeelaysaan ergooyinow ergo waan ku celinayaaye hadhow cabata oo tiraahdo nalama kaneyn iyo nalama kanayn meel baad isugu tegaysaan waad isla fadhiisanaysaan wax walba waad qaybsanaysaan cid walibana inay iska dhex aragto waa loo baahan yahay intaasaan idinkula dardaarmaya idinka waxaanun hadalka kaga baxayaa iminka haddii alla kuu samogol yahay waxaan akidayaa maxay ahayd hadalkii guddoomiyihii hore cabdirashiid marka hore meel looma wada dhammaado wada isu dhammaansho wuxuu imanayaa marka la arko inay wixii markii hore lagu kala duwanaa ay maxay ahayd ay midho dhashay oo wax saxa keentay baa lagu kala duwanaanaya hadduu siyaasi yahay iyo hadduu dhaqan yahay iyo hadduu qofka loo iska caadiyo maxay tahay nolosha ka mida yahay bulshada ka mida yahay wixii maanta inaga aragti duwanaa markay arkaan berrito inay sax noqotay waynu u wada yeedhaynaa waynu inagoo wada jirra waynu isku wada raacaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi